والله الجواد اسمه جورسن كرو sababtana ma ahan inay curiyaan tahay ee qof kale ayaan jeclahay waa run gabadhaas lugaha ayay laadahay laakiin waxay haystaa wax gabdho badan oo da'deeda aysan heli karin hanti ayay leedahay waxa doonto ayaad ku samaysan kartaa ayada guurso sanadyadan nolow kadib hantideeda wareeg qofka jeceshahay la midow walaalkayga aan wanaaga ugu dabadeen jiray miyaa maanta igula talinaya inaan qof kale qalbigiisa jabiyo ma jirto xurmo darro ka hooseysa inaad qof u sheegto wanaag aadan u dareemin inaad u dareensan tahay gabadhaas agteeda qiimo badan ayay ka leedahay laakiin ma ka fikirtay markii ay ogaatay inaan khiyaanay tilmadeena aan ka been sheegay hantida ay maanta haysato inta aan doon aan ka weydiisan karo darteed aan u khiyaanay xanuun intee laga ayay dareemaysaa tan qalbigayga haddii aan kala hadlo qofka aan rabo inaan nolosha la wadaago kaliya ma jecli waxay ii tahay gabadhaas la'aanteed mid aan ku dareemayo in aan ku guuldareysto wax walba dunida yaalla walaal markii aan arko dhoolla caddeynteeda waxa aan dareemaa in aan ahay qofka dunida ugu wanaagsan markii ay dhacdo in aan wejigeeda hor imaado oo aan dareemo inay murugaysan tahay ama ay caraysan tahay deganaan ma dareemo ilaa aan ogaado waxa iyada dhibaya dunida wax walbo yaalla aan ku guuldareysto laakiin wax walba oon ka ballan qaaday gabadhaas waa in aan ku dadaalaa rumaynteeda haddii kale nafteeda ayaa ila culoobaysa haddaanan iyada farxad siinin anigu farxad kuma noolaan karo walaal jacaylkeedu waxa uu ii yahay nolosha in walba ka mid ah shayga ii qurxiya waa laga yaabaa inaad gabdho badan la jeclaato inaan guursado laakiin subax walba waxaan sugayaa sidaan iyada ku qaabili lahaa waa ku baryayaa nolosheeda ay ka baabi'in walaal waxaan rabaa inaan la kulmo gabadha walaalkiisa aan u jecel yahay